iyadoo uu taageero xoog la ka helay Itoobiya Cabdullaahi Yuusuf Axmediyey ayaa loo doortay madaxweynaha TFG wuxuuna magacaabay ra'iisul wasaare xiriir u lahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Malla Zanaawi sanadkii 2004 booqasho madaxweyne Yuusuf ay ku tagay magaalada Addis Ababa wuxuu ka codsaday Itoobiya inay 20,000 oo askari u dirto Soomaaliya si ay u taageeraan xukuumaddiisa. Duulaanka Itoobiya wuxuu si rasmi ah u bilowday markii kumanaan askari oo ka tirsan ciidanka difaaca qaranka Itoobiya ENDF loo diray agagaarka magaalada Baydhabo 16 Juun 2006 ila wareedyo ku sugan gobolka Soomaalida ee Itoobiyaanku haysteen waxay wariyeen inay arkeen tiro badan oo gaadiid dagaal culus ah oo lagu daadgureynaya magaalooyin badan oo ku yaala sohdin beeneedka Itoobiya iyo Soomaaliya. maalin kadib 17 Juun waxay ahayd markii ugu horeysay ee ciidamada Itoobiyaan ay si toos ah ugu gudbaan dhulka Soomaaliya. gobolka Gado 50 gaari oo gaashaman ayaa ka gudbay magaalada Doolow una sii jeeday magaalada Luuq oo 50 kiiloomitir gudaha ugu jirta dalka Soomaaliya. bishii Julaay ku dhawaad 20,000 oo askari Itoobiyaan ayaa la sheegay inay ku urureen xadka 20 Julaay 2006. ciidamo kale oo carrawa ah oo Itoobiyaan ayaa gudaha u galay Soomaaliya 23 Julaay 2006. jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ONLF ayaa sheegtay inay soo rideen diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo Itoobiya leedahay taasoo ku soo wajahnayd Soomaaliya. kadib markaas maxkamadaha Islaamigu waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeen jihaad. bishii September 2006 ugu yaraan 7,000 oo askari oo Itoobiyaan ah ayaa ku sugnaa gudaha Soomaaliya. ciidamada Itoobiya waxay si gaar ah isugu bilaariyeen gobolada Hiiraan iyo Gado. isku dhici military ee ugu horeeyay waxa uu ka dhacay magaalada ku taal gobolka Baay ee Buur-Hakaba waxa uu dhacay 9 Oktoobar 2006. 72 gaari oo dagaal ah iyo kuwa qaada ciidamada oo Itoobiyaanku wataan ayaa weerar ku ekeeyay magaalada Buur-Hakaba. November 2006 xaaladdu waxay noqotay mid culus. ciidamada maxkamadaha Islaamiga ayaa awoodoodii isugu geeyay magaalada Buur-Hakaba. masaafada u dhaxaysa labada ciidan ee ICU iyo ENDF waxay noqotay wax ka yar 20 kiiloomitir. dhacdadii ugu muhiimsaneed uguna miisaanka badneed ee si toos ah ugu gogol xartay dagaalka waxay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyay qaraarka 1725. qaraarkaasi wuxuu ogolaaday in ciidamo shisheeye loo diro Soomaaliya isla markaana la qaado xayiraadda hubka ee saarnay dalkaas muddo dheer. 8 December 2006 laba maalmood kadib markii uu soo baxay qaraarka qaramada midoobay maxkamaduhu waxay ku dhawaaqeen inay la kulmeen weerar kaga yimid ciidanka Itoobiya taasoo ku xigtay duqeyn culus oo horseeday dagaal 2 maalmood socday oo u dhaxeeyay ENDF TFG oo isku dhinaca iyo ciidamada maxkamadaha Islaamiga ah. halkaa ayuu ka bilowday dagaalkii buuxa ee u dhaxeeyay Itoobiya ayna ku qaaday Soomaaliya mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu murugada badnaa ee ka dhacay Geeska Afrika qarnigii 21aad. duulaanka tooska ah ee qabsashada xabashidu ee Soomaaliya iyo dagaalka lagaga soo horjeeday waxa uu socday laga bilaabo 17 Juun 2006 ilaa 30 Janaayo 2009. waa 2 sano 7 bilood iyo 1 toddobaad iyo 1 maalin. ciidamada Itoobiyaanka ee Soomaaliya ku duulay waxay geysteen xadgudubyo ka dhan xeerarka dagaalka kadib markii ay si baahsan oo aan loo meeldayn ugu garaaceen madaafiic hoobiyeyaal iyo gantaalo kale goobaha ay dadka rayidka ah degan yihiin ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waxyaabihii ka dhashay dagaalkaasi ay duulaankaasi Itoobiya ku qaaday Soomaaliya waxa kamid ah oo ay soo dadajisay burbur ku yimi midowgii maxaakamta Islaamiga ah dhalashadii kooxda AS. duulaankani waxa uu u dhaxeeyay cadawga ummadda Soomaaliyeed ee Itoobiya TFG dawladda gaalada ee Mareykanka oo isku dhinaca maxkamadaha Islaamiga oo taageero ka helay jabhadda ONLF iyo dawladda Eritrea. dhanka Itoobiya waxa dagaalka hogaaminayay Malla Zanaawi, Gabrahir, Kuma Damakse iyo Samora Yonis. dhinaca TFG waxa dagaalka ka mas'uul ahaa Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Cali Maxamed Geedi iyo Barre Aadan Shire Hiiraale. dhinaca Mareykankana waxa ka mas'uul ahaa oo duulimaadka Soomaaliya qorsheeyay, taageeray, kabay ku soo duulay George W. Bush iyo Robert Gates. dhinaca maxkamadaha waxa hogaaminayay Shariif Sheekh Axmed, Xasan Daahir Aweys, Ibrahim Cadow, Cabdiraxmaan Janaqow, Xasan Turki, Aadan Xaashi Cayrow, Axmed Godoone iyo ninka Jubbaland iska raandisay xoogana ku haysta Axmed Madoobe oo dagaalka lagu qabtay. tirada ciidamada dalka soo galay ee Itoobiya ka socday 50,000
ilaa 60,000 oo askari, waxaana ka barbar dagaalamayay tiro ciidamo ah oo Soomaali oo iyaga u adeegay oo ka socday dhinaca TFG kuwaas oo dhammaa 10,000 oo askari. Tirada ciidamada Mareykanka ee dagaalka ka qayb galay lama shaacin, ciidina ma oga. Ciidanka maxkamaduhu waxay dhammaayeen 15,000 ugu yaraan 5,000 oo ciidanka xabashida ah ayaa lagu dilay intii uu socday dagaalkii 2006 sida ay sheegtay IGAD. ilaa 10,000 ayaa ka goostay Ethiopian, laakiin tiro taa ka yar oo 2,000 ilaa 3,000 u dhaxaysa ayay Ethiopian ku qirteen in dagaalka ay kaga dhinteen. 7,000 ilaa 8,000 ayay Ethiopian ku qirteen in dagaalkani kaga dhaawacmay. guud ahaan tirada dagaalka ku dhimatay Soomaali iyo Xabashiba waxaa lagu qiyaasaa 16,210 ilaa 20,000 oo askari. in ka badan 1 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa ku barakacday ilaa November 2007. waxaan ahay Muxuudiin Cabdi, Nabadino.